wafdi uu hogaaminayay gudoomiyaha gobolka Cayn Guuleed Maxamed Nuux oo ay ka mid yihiin cuqaal culimo ganacsatada gobolka Cayn ayaa gaadhay santarka Jarmal ee degmada Booq ee gobolka Doolo ee dowlad deegaanka Soomaalida. wafdigan ayaa ujeedkiisu ah inay caawimo gaarsiiyaan dadkii ku waxyeeloobay dabdhawaan magaaladaas ka kacay. wafdigan ayaa deeq lacageed, agab dhisme iyo gogol ku wareejiyay maamulka degmada Booq oo uu hogaaminayay gudoomiyaha degmada Booq Caweeye Maxamuud Axmed iyo madaxa xafiiska ka hortagga masiibooyinka ee degmada Booq, halkaas oo ay maamulka degmada Booq ay alaabtaas iyo lacagtaas ku wareejiyeen guddiga deeq ururinta ee reer Jarmal. guddigaas ayaa iyaguna ka mahad celiyay deeqdan la soo gaarsiiyay, sidoo kale ballan qaaday inay gaarsiin doonaan dadkii halka ku waxyeeloobay. Jarmal baan joognaa, guriyihii gubtay baan dhex taagnay, waad u jeedaan. Sida daraadeed waan kala wareegay lacagta ayaga. halka waxaan uga ducaynayaa dad si gaara uu yiri waa u soo shaqeeyeen oo uu sheegay Ciise Axmed Garasoofe, Bahja Cabdi Gulwade iyo Naciima Maxamuud Xasan. Allah barakeeyo oo Naciima wali waa xanuunsantay, Ilaahay caafimaad degdeg ha siiyo. labadaas gabdhood baan u ducaynayaa iyo dhammaan cidii kale la soo ururisay. gabdhaha waxaan leeyahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala adduunka aakhirada Ilaahay idin barakeeyo, meesha ka saarteen mid ka badan oo ka baraka badan Allah idin ku bedelo. adduunkana Ilaahay subhanahu wa ta'ala masaa'ib jirta Allah idin ka leexiyo. cidii xanuunsan sida Naciima oo kale Ilaahay caafimaad degdeg ha siiyo. cidii kale oo maaragtay hawsha ayada ka qayb qaatay iyadana waa u ducaynaa Ilaahay ha barakeeyo. baahida wali way taagan tahay, meeshii wali guriyihii way dunsan yihiin. waxay u baahan yihiin dadkaas wadad ehela oo muslimiina oo ehelkiina caawimo idinka baahan yihiin. cidii kale kilibkan aragtana saas oo kale ayaan uga codsananaa inay u soo caawiyaan dadka xog soo darsadaan. bismillaahir rahmaanir rahiim. ilaahay baa mahad leh. waxaan u mahadnaqayaa dhammaan ummadda meesha isugu timid. marka hore waan u mahadnaqayaa. mar labaad waxaan u mahadnaqayaa hantida la ii dhiibay kuwa ku hawshooday oo hawlgalay ee muddada badan ku maqnaa ee soo ururiyay. waan u mahadnaqayaa. waxaan u mahadnaqayaa maamulka hawsha ka qayb qaatay markii hore ka qayb qaatayna hawshii ku jira ee degmada. yaan u mahadnaqayaa sida hawsha hufan ay ugu jiraan, ay hawsha marba talaabada qaadayso ay la socdaan. waan u mahadnaqayaa. waxaan u mahadnaqayaa walaalaha hantidaas soo bixiyey walaalahood ku caawiyey ka naxay muxuu ahaa ka qirooday dabka walaalahood guryahoodii ku gubteen iyo hantidoodii iyaguna hantida dhibka la qaybsaday. ama Boohoodle gobolka Cayn ha joogeen ama qurbo joogta reer Norway ha ahaadeen ka soo qayb galay inta la dhiibay la yiri waa leeyihiin. waan u mahadnaqayaa dadkan ay maxay ahayd guriyihii iyo maxay ahayd dhaqaale badan baa ku burburay, guriga badan baa gubtay, dhib badan baa ku dhacay. waxaan Ilaahay horta uga baryaynaa dadka noo soo birmaday islaamka dhammaantood Ilaahay inuu abaalkooda weyneeyo. Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa mahadda koowaad mar walba leh. Ilaahay subhanahu wa ta'ala nooga badbaadiya dadkii wax dadii meesha waxba kuma noqon, laakiin dunyadii meesha taalay wax qumani kama baxsanin. guriyo far badan baa gubtay, qaar waa la dumiyay oo dadka gacantooda ku dumiyay dabka lagu xakameeyay. waxaan markaa maanta wareejinay hantidii iyada ahayd ee aanu ku soo xilliga ururinaynay oo dhan 4,461,600 oo bir. 150,000 waxaa bixiyay reer Norway. 311,600 waxaa bixiyay reer Boohoodle oo uu ka mid yahay Maxamed Cabdilaahi Kayse oo qurba jooga. Ilaahay waxaan uga baryaynaa abaalkooda inuu weyneeyo dhammaan. anagoo ah maamulka degmada Booq waxaa halkan aanu kala wareegnay dadka walaalaha ee ku nool magaalada Boohoodle iyo qurba joogta Norway oo uu hogaaminayay gudoomiyaha gobolka Cayn Guuleed Maxamed Nuux. waxaan ugu mahad celinaynaa gurmadka walaalnimada ah, Soomaalinimada ay u muujiyeen dadkii ay waxyeeladu ku gaadhay gubatadii ka dhacday santarka Jarmal. runtii mar labaad iyo mar saddexaad waa uga mahad celinaynaa. waxaanu kala wareegnay lacag dhan 459,100 riyaal oo ay ugu talagaleen dadkii walaalahood ahaayee ku waxyeeloobay gubashada.
oo aan taagannahay maanta runtii khasaare aad u weyn baa ka dhacay ilaa 59 guri meelahaasaa gubtay dad baa ku barakacay dad baa hantidoodii ku waayey dad baa ilaa hadda meelay seexdaan la kolley xukuumad ahaan iyo ka xisbi barwaaq ahaan baa annagana kolley qorshe adag baa nooga yaalla waxna waa u keennay haddana waa wixii kale insha allah waa u keenaynaa waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba u mahad celinayaa dadkan walaalaha Soomaaliyeed ee u soo gurmaday iskugu jira ganacsatada ku nool magaalada Buuhoodle iyo qurbo joogta deegaanka dowlad deegaanka ee ku nool dalka Norway mar labaad iyo mar saddexaad waa idinka mahad celin waxaan joognaa santarka Jarmal degmada Booq gobolka Doolo dowlad deegaanka Soomaalida waxaan halkan u nimi anagoo ka soo kicitay magaalada Buuhoodle xarunta gobolka Cayn anigoo gudoomiyaha gobolka Cayn iyo wafdi aan hogaaminayay oo ka koobnayd cuqaal simo ganacsato iyo waxa kale yiraahdo dhammaan qaybaha bulshada oo ka kooban bulshaweynta gobolka Cayn waxaan halkan u nimi inaan u soo gurmano dadkii walaalaha iyaga ahaa Soomaaliyeed islaamka ahaa in aan waxa weeye dhibaatadii iyo dabkii ka kacay magaalada Jarmal aan ka caawino caawimadaas oo ka timi qurba joogta iyo ganacsatada deegaanka Buuhoodle waxaan halkan soo gaarnay maanta qolada maamulka Booqna halkan ay degmada Booq maamulkeedu noogu yimaadeen waxaan halkan ku wareejinaynaa deeq isugu jirta waxa kale yiraahdo qalab dhismo oo ka kooban waxa kale yiraahdo jiingado iyo furaashiyo waxyaalaha halmaara iyo maxay ahayd tooy dhaqaale lacag ah oo laga soo dadkaas muxsiniinta ay soo ururiyeen oo isugu jira shirkadka waaweyn ee gobolka iyo waxa weeye ganacsatada iyo guud ahaan dadka gobolka ku nool lacagta aan wareejinayna cadadkeedu waxa uu dhan yahay 459,100 bir waxaan rabaa lacagtaas inaan ku wareejiyo gudoomiyaha degmada Aweeye degmada Booq iyo golihiisa kaabineedka oo aan si dhameystiran ugu wareejiyo ku soo dhaw gudoomiye Ibrahim Abdiqaadir Jabaan Buuhoodle.